السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو dhawaada ardayda maanta waxaan rabaa inaan idin sharxo anatomy of the upper limb. aad bay u fududahay, waxaan rabaa inaad si fudud u fahanto. marka hore waxaan ka hadlaynaa bones of the upper limb, dan waxaan ka hadlaynaa muscles, dan waxaan ka hadlaynaa vessels. hadda waxaan ka bilaabaynaa anatomy of the upper limb oo ah boneska. anatomy of the upper limb marka laga hadlayo waxay ka kooban tahay 32 lafood. macnaha 32 lafood, macnaha qofku wuxuu leeyahay laba gacan ayuu leeyahay. halka gacan waa 32 lafood, laakiin labada gacan midka right-ka ah iyo midka left-ka hadii la isku daro waxay noqonayaan 32 oo loogu daray 32 waxay noqonaysaa 64. marka halkan xabo hadda ku sharxo waxay ka dhigan tahay midka kan ku sharxay. okay, waxaan ka bilaabanaa marka clavicle. laftan ee bulugda u jeedo waxaa loo yaqaanaa clavicle. okay, lafta buluga waxay isku xirtaa saableyda iyo waxay isku xigtaa gacanta, marka waxaa loo yaqaanaa clavicle. okay, laftan ee madowda u jeedo ee u samaysan triangular shape ah iyada waxaa loo yaqaanaa scapula. okay, this is the scapula. okay, lafta cagaarka ah u jeedo ee ugu dheer upper limb, lafta ugu dheer ee upper limbiga waxaa loo yaqaanaa humerus. okay, marka labadan laf ee ku jirta gacanta, qofka markuusan yahay gacantiisa meeshan waxaa loo yaqaanaa forearm. forearm waxaa ku jirta marka laba laf, mid waxay soo xigtaa fariirada, midna waxay xigtaa suulka. okay, qofka anatomical position marka uu istaago mid waxay xigtaa suulka, midna waxay xigtaa fariirada. okay, marka labada laf inta ku jirto midka fariirada xig iyo midka suulka xig laba magac ayay kala yihiin. marka midka xig suulka waxaa loo yaqaanaa radius, midka soo xiga kan fariiradana waxaa loo yaqaanaa ulna. okay, fiiri suulka waa kana. suulka markaa saas suracda waxaa arkaysaa lafta madowda ah, ama fariirada markaa saas suracda waxaa arkaysaa lafta buluugda ah oo aniga aa ka gareeyay. marka midkan madowga ah ee dhanka suulka soo xigto waxaa loo yaqaanaa radius. okay, midka buluuga ah ee xigto dhanka xoo ahaa oo fariirada waxaa loo yaqaanaa ulna. okay, lafta meeshan markaa sii socoto qaybtan waxaa loo yaqaanaa hand. okay, hand waa intaan oo nuxsanaysa. marka handiga waxaa u kala qaybinaynaa 3 qaybood: qaybtan cagaaran, qaybtan gaduudan iyo qaybahan madow. okay, si fiican usoo dhigaysa. marka qaybta cagaaran waxaa loo yaqaanaa carpus. okay, qaybta gaduudan ee ku xigto waxaa loo yaqaanaa metacarpus. okay, qaybta madowda ee ugu dambeysa ee faraha ay ka kooban yihiin ayagana waxaa loo yaqaanaa phalanges. okay, phalanges. lacala hadduu qof ku weydiiyo upper limb lafahooda meeqa ay ka kooban yihiin, ustaadi waa 32 lafood halka qayb, macnaa halka dhinac. haddii right handiga waa 32 lafood, left handigana waa 32 lafood. marka 32 lafood isoo tir hadii lagu dhaho, kow waxaa kasoo bilaabaysa clavicle. number 1 waa clavicle, 2 waa scapula, 3 waa humerus, radius waxaa siiyey 4, ulna waxaa siiyey 5. okay, meeshaas waxaa ku haystaa qaybtan kor waxaa ku haystaa 5 lafo oo muuqdo waaweyn. marka meeshaan yar waxyar maxuu ah complicated ah inaa kala bixiso isku day. marka carpus qaybtan yar cagaarka ee isku jirto laftan hadhow ayaan si fiican u sharxi doonaa. marka waxay ka kooban yihiin 8 lafood. okay, metacarpal tira. marka metacarpal waa kuwa gaduudka ah 1 2 3 4 5 waa 5 lafood. okay, phalangeska fiiri. phalangeska maxuu ahaa proximal iyo distal iyo middle loo kala qaybiyaa. marka suulka waxay leedahay 2, laakiin 4 farood midib waxay leedahay 3.
marka fiiri meeqa farada meeqa waxaa kaaga soo bixayso oo lafa kaaga soo bixayso labadan iidi korta labo suulka ay kaaga soo baxday afartan waa min saddex afar saddex ku dhufo waa 12 okay marka 12 oo lagu daray labo waxay la mid tahay 14 okay marka xisaabta isku soo wada darsa marka meeqa noqonay 1 2 3 4 5 5 loo geeyay 8 waa 13 loo geeyay 5 waxay noqonaysaa 18 oo loo geeyay 14 waxaa meesha noqonaysaa 32 lafood marka 32 lafood meesha ayaa ka timaaday lafta clavicalka anatomy-giisa ayaan ka hadlaynaa marka clavicle sideeda waa laftan buluuga u jeedo okay laftan buluuga u jeedo waxaa loo yaqaanaa clavicle okay waa lafta kalxanta marka laftan dhexda ku taala ee sableyda waxaa loo yaqaanaa sternum kan waxaa qaadan doonaa markaan ka hadlayno thoracic cage ayay muhiim tahay laakiin hadda wax yar ayaa naga soo gelayo sidaas ayaa magaceeda kugu sheegay waxaa loo yaqaanaa this sternum ayaa loo yaqaanaa okay this is the clavicle lafta hadda arrow anatomy-da aan ka hadlo marka clavicle fiir waxay u dhaxaysaa sternum iyo garabka ayay u dhaxaysaa sida garabka meel loo yaqaan acromion okay this projection like oo macnaha waxyakan soo tagan oo jeedo ay ku dhigan tahay waxaa loo yaqaanaa acromion okay marka lafta clavicle sideedaba qaabkeedu waa qaabka labo kale fiiri qaabkeedu waa labo oo kale okay saas oo kale waa number labo oo kale waa macnaha marka maadaama iyada labo kale ay tahay wax walba oo marka laga hadlaayo waxaa usoo gaabistaa labo ay macnaha si aad u xifdiso lafta clavicle meeshaan fiiri hadda waxay noodka aan kugu qoray fiiri calaamadan labo waxay ka dhigan tahay waxa waaye laftu waxay leedahay 2 ends laba end ay leedahay waxay leedahay 2 joints laba joint ay leedahay waxay leedahay 2 surfaces laba surface ay leedahay waxay leedahay 2 borders laba border ay leedahay marka labadan hadaa xifdido clavicle waa xifdis wax kale kuma dhina macnaha wax ku dhimo aad bay u yaraanayaan okay 2 ends macnaha maxay kala yihiin external end iyo acromial end fiiri clavicalka intay ku dhamaataa intana ku dhamaataa sternumka ku dhamaato waxaa loo yaqaanaa external end okay external end acromica ku dhamaato waxaa loo yaqaanaa acromial end okay external end acromial end okay sternumka markuu ku dhamaado joint ayuu sameynaa acromica markuu ku dhamaado joint ayuu sameynaa kan sternumka ku dhamaado waxaa leenahay sternoclavicular joint acromica ku dhamaado acromioclavicular joint okay waa kana 2 ends external end acromial end 2 joints sternoclavicular joint iyo acromioclavicular joint okay lafta marka waxay leedahay 2 surface okay laba surface ayay leedahay surface kore iyo surface hoose okay surface kan ee cagaarka ujeedo ee kore waxa waaye waa superior oo sareeya macnaha waa surface kore okay surface kan kale oo buluuga ujeedo waa inferior oo hooseeya macnaha waa surface-ka hooseeyay okay calaamada madowda ee dhexda ugu jirto anterior ay soo xigtaa macnaha maadaama anterior ay soo xigto waxay noqonaysaa 2 borders waxaa ka soo qaadanayna marka anterior border posterior borderna gadaal ayuu jiraa 1 2 okay 1 2 3 okay maadaama saddexdan aan kala qeybay maxay tahay qaybtan waa lateral qaybtan waa medial okay lateral 1/3 okay saddex meelood meel waa lateral laba meelood saddex meelood laba meelna waa medial superior surface marka laga hadlayo waa subcutaneous waa maqaarka ayaa saaran waa meesha kaliya aad taaban karto marka lafta markaa saas u taabato
wax kale kaama xigo maqaarka bisa kaa xigo marka waa subcutaneous ayaa saaran marka waxaa leenahay superior surface waa smooth waana subcutaneous okay inferior surface waa rough waa waxaa ku yaala meelo soo taagtaagan inta waxaa ku leedahay meel soo taagan gaduudkaas aa ujeedo waa meel soo taagan meeshaana waa line okay meeshaan waxaa maro groove okay gaduudkan aa ujeedo waa groovekaas oo dhexda maraayo waxaa loo yaqaanaa oo qaybta hoose inferiorka waay waxaa loo yaqaanaa subclavian groove okay inta waxay ku leedahay impression okay impressionkan waxaa loo yaqaanaa costal impression okay anatomy of the scapula markii laga hadlaayo waxay leedahay laba surface ayay leedahay 3 borders 3 angles iyo 4 fossa okay 4 good 3 angle 3 border iyo 2 surface intaas ugu muhiimsan then wax walba waxaa kaleeyso aniga ku sheegi doona insha Allah laakiin aayadda ugu horeyso oo la qaadanayo muxuu ahaa scapula waa inaan hataa scapula ilowdo ustaadi ha ilowin waxaan inay leedahay 2 surface 2 border 3 angle iyo 4 fossa inta ha ilowin wax kale iska ilow hadaarto okay waxaan ka bilaabaynaa 2 surface okay 2 surface markaan dhehno anterior surface hore ayuu soo xigaa posterior surface gadaal ayuu xigaa for example aniga markaad ifiidaan saan markaa ahay this my right side okay this is my right hand kan wuxuu noqonaa marka right scapula okay haddii shaatiga la qaado feerahayga la qaado feeraha haddii la qaado waxaa arkaysaa scapula laakiin scapula arkaysa macnaha waxaa ka aragtay qaybta anteriorka ka aragtay okay waa sii jeesanaa feer marka saas markaa dhaho haddii shaatiga la qaado oo wuxuu ahaa skinkii iyo muscleskii la qaado waxa ugu horeeya arkaysana waa posterior surface of the scapula okay marka waxaan soo taagan aa ujeedo waa kana sawirkan macnaha okay ama saan markaa soo jeesto this macnaha waaye right scapula waxaan uga jeedaa anterior surface okay this 2 surface maxay kala yihiin waa anterior surface okay a posterior surface okay this is the anterior and this is the posterior okay here marka waxay leedahay 3 borders saan markaan ahay fiirsi fiican oo fiiri this macnaha anterior surface markaan ku dhaho inta waxay noqonay lateral wixii jirka ka xakeeya waa lateral wixii jirka dhankiisa soo jirana waa medial okay marka meeshaan waxay noqonaysaa lateral meeshaan waxay noqonaysaa medial wixii jirka ka xakeeyo lateral wixii jirka xaggiisa soo xigna medial okay this fiir marka wuxuu noqonaa borderkan aa ujeedo buluuga aa ka dhigay wuxuu noqonaa lateral border okay borderkan asigana wuxuu noqonaa medial border okay and this border oo kora jiro asigana wuxuu noqonaa superior border okay marka 3 borders 3 angles 3 border maxay kala yihiin lateral border medial border superior border okay marka 3 angles kala meeshaan aan ka soo saaraynaa fiiriya
marka inta waa angle. Okay, meeshan waa angle 2, meeshan waa angle 2, meeshan waa angle 3. Okay, 3 angles. marka fiiriyaan lateral border soo socda intuu ku dhamaaday, medial border soo socda intuu ku dhamaaday, laakiin labada dhamaadkooda waxaa sameysmay angle. Okay, labadan dhamaadkooda waxaa sameysmay angle. Okay, this angle kan u jeedo waxaa loo yaqaanaa hoos ayuu jiraa macnaha, maadaama hoos uu jiro waxaa leenahay inferior angle. Okay, kana fiiri marka medial border intuu ku dhamaaday, superior border intuu ku dhamaaday, waxay sameeyeen angle. Okay, angle kan ay sameeyeen waxaa loo yaqaanaa, maadaama angle-ka kor uu jiro, kan hadduu inferior noqdo kan waa iska qiyaasi kartaa caadada, wuxuu noqonaa superior angle. Okay, hal angle loo dhigo macnaha laba angle ka hadlana soo mahan. fiir marka superior border soo usoo socdo intuu ku dhamaaday, lateral border soo usoo socdo asina intuu ku dhamaaday, waxay sameeyeen angle. angle-kan waa muhiim ah. angle-kan ha ku weerarina macnaha weeraha kaliya imtixaanka badan lagu keeno waa angle-kan wuxuu noqonaa good. angle-kan wuxuu noqonaa good. godkaasna waxaa geli doono wax loo yaqaano humerus. soo ma ahayn hadaadsi markaa kana leelay waxaan dhahnay humerus meeshaane gelaysaa soo ma. Okay, this is humerus. waxay leedahay godkaan ay galay, maadaama godkaan ay galayso, godkaan magacii muhiim waa marka waana angle. Okay, marka angle ahaan markaa ka sheekeynayn wuxuu noqonaa lateral angle noqonaa. fiiriya wuxuu noqonaa lateral angle ayuu noqonaa, laakiin this lateral angle macnaha waa fusa, waa god. marka godkan oo lateral angle-ka ay leedahay waxaa loo yaqaanaa glenoid fossa. Okay, glenoid fossa. marka hadhow afarta god markaa ka hadlayno, hadda hal god naga bax macnaha halkan godni aa sameeyey, lateral angle aa sameeyey. That's it. Okay, marka anterior surface godadkan ka hadlayna, marka godadkan ka hadlayna maxaa kamid ah 4 god ayuu leeyahay soo mahan. hal god waxaa uga jeedaabo glenoid fossa oo ujeedaa oo lateral angle sameysa sax. godkan weynka ah ujeedo anterior-ka ah, godkan waxaa loo yaqaanaa subscapular fossa. subscapular fossa loo yaqaanaa. Okay, marka fiiriya waxaan ka hadalnay 3 borders. Okay, medial border, lateral border iyo superior border. waxaa ka hadalnay 3 angles: superior angle, inferior angle, lateral angle oo noqonayo glenoid fossa. marka waxaa noo dhiman 4 fossa noo dhiman soomaan 4 fossa kalena. marka 4 fossa had maxaa naga baxay glenoid fossa oo sameeyay lateral angle iyo subscapular fossa oo ah qaybta anterior-ka ah. Okay, marka posterior-ka ku arkayna waxaa noo har 2 fossa noo hartay, 2 fossa noo hartay waxaan ku arkaynaa qaybta posterior-ka. Okay, marka scapular-ka marka laga hadlayo qaybta posterior-ka waxay leedahay spine. Okay, this ujeedo waa spine. Okay, spine-kan magaciisa waxaa loo yaqaanaa scapular spine. Okay, spine of the scapula. Okay, waa spine. Okay, this spine marka wuxuu ii sameynaa 2 god. godkan kore iyo godkan weyn oo hoose. Okay, marka fiiri godka kore yoo ka sareeya spine-ka ayuu ka sareeya soomahan. godka kore yoo ka sareeya spine-ka ayuu ka sareeya. marka waxaa leenahay godkii ka sareeyey spine-ka supra wuxuu ka sareeyaa spinous-ka ka sareeyaa waana fossa, waana god. Okay, kan xalinaha wuu ka hooseeyaa infra wuxuu ka hooseeyaa spinous
ayuu ku hooseeyaa waana fossa. Okay, meeqaa ka hadlana marka hadda? meeqa god? 1 2 3 iyo 4. 4 god waa ka hadlay. Okay, marka muhiimad maxaa waa spine-kan soo u socda fiir ustaad, soo u socda wuxuu noqday process. Okay, this waxaan ujeedo oo soo taagan ee samaysay spine-ka oo scapular-ka waxaa loo yaqaanaa acromion. Okay, hadaadan waa kuu sheegay waxaan ku dhahay markaa clavicle-ka qaadanaynay acromion waxaa ku dhegan clavicle-ka ku dhegan. Okay, waxaan sameynayaan joint oo loo yaqaana acromioclavicular joint. marka acromionka meesha ayuu ka yimaadaa. This waxaa loo yaqaanaa coracoid process. Okay, marka anatomy of the scapula meeshaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa. Humerus, anatomy of the humerus. Humerus waa lafta ugu dheer upper limb marka laga hadlaayo. Marka laf walbo oo dheer hadaa aragto waxaa u qaybsataa 3 qaybood oo muhiim ah. Okay, waxaa u qaybsanaynaa 3 qaybood ayaan u kala qaybinaynaa. Okay, qaybta kore waxaa leenahay proximal. Okay, qaybta dhex waxaa waaye waa shaft. qaybta hoostana waxaa leenahay distal. Okay, waxaa kala qaybinaa proximal, shaft iyo distal. marka saas 3daas qaybood u kala qaybiso waxaa ku fudanayso qayb walbo wixii laga macnaha waxa ka dhex xifdin lahayd. Okay, proximal maxaa ka heli doonaa? shaft maxaa ka heli doonaa? distalna maxaa ka heli doonaa? Okay, proximal marka ka hadlayno waxaa ugu muhiimsan head of the humerus. kan waa madaxa ay leedahay humerus, head. Okay, head of the humerus waa madaxii humerus-ka. waxay leedahay 2 neck ayay leedahay. 2 neck fiiri, neggan aa ujeedo ee ugu horeeyo waxaa loo yaqaanaa anatomical neck. anatomical neck. Okay, waxay leedahay qoor kale. qoorta kale ee leedahay waa kana waxaa loo yaqaanaa surgical neck. Okay, anatomical neck iyo surgical neck. waxay leedahay 2 tubercle. Okay, waxay leedahay 2 tubercle. 2 tubercle midkan wuu weyn yahay midkan wuu yar yahay fiir. Okay, this waa tubercle kan waa tubercle. midaa weyn midna wuu yar yahay. si fiican u fiir markan. midkan weyn waa inuu qaataa magac greater, midkan yarna wuxuu qaataa lesser macnaa wuu yar yahay. Okay, kan waxaa leenahay greater weyni, kanna waxaa leenahay lesser yare. Okay, marka labada waa tubercle. marka waxaa leenahay greater tubercle iyo lesser tubercle. Okay, greater tubercle iyo lesser tubercle. Okay, maxaa kaloo muhiim ah ujeedaa meeshaan? marka labada tubercle dhexdooda waxaa mara doox ama jeex. Okay, this aa ujeedaan waa wada dhex marto labada tubercle. Okay, wadadan waxay u dhaxaysaa labada tubercle u dhaxaysaa. marka maadaama labada tubercle u dhaxayso waa inay qaataa magaca macnaha lagu xasuusanayo. markaas magaca waxaa leenahay waxay u dhaxaysaa tubercular groove. waa groove-kii u dhaxeeyay labada tubercle. Okay, marka laga hadlayo proximal part of the humerus waa inaa intaan ka xifdiso. haddaa intaan ka taqaano anatomy of the humerus qaybta proximalka wax kaagama dhina macnaha. Okay, head of the humerus, anatomical neck, surgical neck, lesser tubercle, greater tubercle, intertubercular groove. That's it. Okay,
shaftiga maxaa ka helayaa macnaha shaftiga waxaan ka helayaa fiir laftiisa u toosantahay fiir meeshaan way toosantahay soomahan laakiin meeshaan wax yar qalooca ku jiro fiir okay waa tuberosity okay this tuberosity waxaa loo yaqaanaa deltoid macnaha deltoid macnaha waa hadhow muruq oo waxaa jiro lahayo deltoid okay deltoid maasal ayaa qabsan doona markaas waxaa loo yaqaanaa deltoid tuberosity okay deltoid tuberosity okay waxaa ka helaa qaybta shaftiga marka deltoid tuberosity gadaashiisa marka laga hadlayo macnaha laftaada qaybtan shaftiga ayaan gadaal ka sawiraa macnaha gadaal markaa saas u sawiro waxaan arkaa groove okay groovekan waxaa mari doono nerve okay groovekan waxaa mari doono nerve okay nervahaasna waxaa loo yaqaanaa radial nerve of course waa inuu qaataa magaca radialsne markaas waxaa loo yaqaanaa maadaama radial nerve uu mari doono waxaa u bixinaynaa radial groove okay laakiin magaca buwaagta qaar way kala duwan yihiin haddaa radial groove aad aragto haddana buwaagta qaar waxaa ku arkaysaa spiral groove okay spiral groove iyo radial groove waa same okay groovekan waxaa maro radial nerve ayaa maro maadaama radial nerve uu maro waxaa u bixinaa radial groove buwaagta qaarkood waxay qorayaan spiral groove waxaan radial that's it okay marka waxaa usoo deginaynaa qaybta distal partiga okay markaa kalena distal partiga waa meesha complicatedka u ah ama waxyar oo dadka ardayda ku adkaanaysa inay fahmaan okay marka fiiri lafta qaybtan waa lateral samahan okay qaybtan waa lateral qaybtan waa medial okay gacantaada fiiri gacantaada markaa meeshaan fiirito waxaa arkaysaa wax soo taagan waxaa soo taagan waa medial okay qaybta medialka ku taagan yahay qaybtan waa lateral okay jirka ayuu ka xakeeyaa okay marka fiiriyaa labadan soo taagan meeshaan taagan iyo meeshaan taagan magaca u kala bixin horto kadib dhaxdan kuma wareereen okay waxaan soo taagan aa ujeedo waxaa loo yaqaanaa lateral epicondyle okay lateral epicondyle okay of course this muxuu noqonayaa macnaha waxaa noqonayaa medial epicondyle okay very easy okay waxaa jira marka meelo yaryar oo soo taagan okay meeshaan ee soo taagan aa ujeedo ee hadhow qabsan doonto radial bone oo cagaarka ah waxaa loo yaqaanaa capitulum okay qaybtan kale ee gaduudka ah ee qaybta siba medialka xigto waxaa loo yaqaanaa trochlea okay trochlea okay capitulum iyo trochlea okay marka waxaa ka soo xigto laba fusa oo inta ku taalo iyo fusa inta ku taalo okay marka midku waxay xigtaa medial midku waxay xigtaa lateral okay hadhow waxaa fusadan waxaa madaxa gashan doono radial bone markaas waxaa leenahay radial fossa very easy okay this waxaa loo yaqaanaa good waaye asigana waxaa loo yaqaanaa cornoid fossa okay distal part of the humerus maxaa ka helaysaa waxaa ka helaa two epicondyle medial epicondyle iyo lateral epicondyle waxaa ka helayaa two fossa anterior part marka laga hadlaa waxaa ka helaa radial fossa oo lateral xigto iyo cornoid fossa oo medial xigto waxaa ka helayaa two meel lasoo taagan ah oo ah capitulum
iyo trochlea. Okay, marka qaybta gadaal kana kusii xijinayaa qaybta gadaal ee humeruska waxaa jirto god weyn oo hadhow alna ay gelayso, marka godkaas waa muhiim jiddan. Okay, marka medial epicondyle inta soo maraa fiiri, medial epicondyle marka soo mar lafta saac ay noqonaysaa this lateral epicondyle sababta gadaal saas oo kale waana gadaal waa hadda saan noqdo this waxaan soo taagan ujeedo waxa waaye medial epicondyle. Okay, this waxa waaye lateral epicondyle, laakiin hada laftan oo aan ka hadlaayo hadda aan ka hadlaayo anterior part ee saaneed macna. Okay, marka medial epicondyle inta soo maraa, lateral epicondyle xagga maraa. Okay, this is lateral epicondyle, this is medial epicondyle. hadda fiira lafta wareejina marka wareegsado waxay noqonaysaa medial epicondyle inta soo maraa marka this is medial epicondyle, marka this is lateral epicondyle. Okay, inta waxaa ka hela fossa. Okay, fossahan waa muhiim marka fossahan waxaa loo yaqaanaa olecranon fossa. Okay, qalin guduud qorana olecranon fossa. Olecranon fossa waxaa gali doono waxa loo yaqaano ulna olecranon fossa. Okay, that's it. intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa upper limb bones shape waxaan dhignaa hadda clavicle, scapula iyo humerus. waxaa noo dhiman radius iyo ulna, carpal, metacarpal iyo phalanges. ayagana waxay noqon doonaan next lesson insha allahu tacaala. hana mogaanina haddaad videogan ka heshay fadlan walaal la wadaag asxaabtaada, pagekana kusoo biir si aad ula socoto casharada aan soo dhigi doono facebooka iyo youtube channelkeygana subscribe saar si aad ula socoto hadhow ama aad soo download garaysato. waad mahadsantihiin.